humaag waliba oo indhahaagu qabtaan lama muunayo micno buuranna looma sameeyo iyadoo ay sidaasi tahay haddana humaaggan ama sawirkan aan idiin wado waa mid dareen laxaad badan kugu abuuraya cuquul badanna godlinaya ubadkani waxay ku joogaan jid siman oo laga saxartiray wasaq idilkeed oogadoodana waxaa ka muuqata garaad lagu simay rajo idilkeed indhahooda kolkaad sii eegto waxaad dareemi raynrayn idilkeed xaaladdaasna waxaad geli qiyaal aadan jeclaan lahayn in lagaa dhex galo aan dhowr qodob idinku faallaya sawirkan ta koowaad iyaguna la yaabka badneed kolkan fiirinayay humaaggani waxay ahayd sirta qotada dheer ee ku duugan indhahooda gabadha yar kolkaad eegto waxaad dareemi farxad iyo laabfurnaan kolkaad wiilka eegtana hiigsi ayaad ka dheehani sideedaba waa hibo samaawi ah kolkaad haysata walaal wiil ah ama gabar walaashaa ah misana garabkaaga taagan مليومات عضد هوسي فكرة عاطفة مدح مرتي أو كل لما يصاب بحد أي نوقن كوجو بدلي سرت دعصونة غرفين تصورت تحناها أياه كبعنت جراد كتدوينها شرفت بدن كحرا كنال كديرجلية انظر إلى تلك النجوم مهما تغطيها الغيوم ستظل تلمع حرية حبا تحوم انظر إلى البدر الجميل بدل البكاء أو العويل مع نور شمس الصبح في لطف اليمين